ad ka dhageysanaysan kana daawanaysaan waa TV-ga wadana doon dareen daacadii idin soo gudbinaya xaqqa diinta xuquuqda shacabka iyo xorriyadda dalka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wariyaheena Soomaaliga mudane Cabdimaalig Muuse Caldoon oo dhibana ku ah maamul goboleedka Somaliland oo halkaas lagu xiray kaas oo ka sheegay arrimo Jonas Ciise ayadoo taas oo ku tilmaamay gabadhaas inay faafinayso diinta masiixiyadda ee la imaatay magaalada Somaliland taas oo ay ka waday barnaamijyo dib u dhac u ah danaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed idab darana ku ah taas oo ay tahay anshax darada ragga isku tagaan dumar isku tagaan barnaamijkaas oo fashiliyay ayaa guddoomiyaha ugu heestaa wuxuuna halkaasi ku yiri ra'yigiisa uu yiri halkaasi dhageysta daawasho wacan dulmiga hala diido beenta yana isu sheegin saad bayna isu sheegina si kaleera aynu isu sheegno runta aynu isu sheegno yana beenta isu sheegin wanaag baan u wadaa Soomaali oo dhan baan wanaag wadaano wanaag baan u wadaa